kusoo dhawaada mar kale iyo barnaamijkeennii Hareer iyo Hargeysa oo markan idinka imanaya magaalo xeebeedka Maydh. magaalada Maydh waxay ka mid tahay meelaha ugu taariikhda dheer geeyiga Soomaalida, waxaana dadka qaarkood ay ku tilmaamaan inay tahay dhulkii awowyaasha, iyadoo taasi looga jeeday in halkan ay ku aasan yihiin shuyuukh fara badan oo qabaa'ilka Soomaalida qaarkood ay ka soo tafiirmeen. magaalada Maydh taariikhdeeda waxa lagu qiyaasayaa inay jirto ku dhawaad ilaa 1000 sannadood, waxaana magaalada Maydh waqtigan xaadirka ka jira duruufo la mid ah kuwa ka jira xeebaha ku dheerarsan badda cas iyo badweynta Hindiya. ragga kalluumaysatada ah ee ku nool deegaankan Maydh waxay aad iyo aad uga cabanayaan maraakiibta iyagu dhibaatada ku haya kalluumaysigooda, maraakiibtaasi oo ay tilmaamaan inay yihiin qaar shisheeya oo markaasi ama shabaagta ka gooya amaba dhibaatooyin kale u geysta oo ay ka mid tahay xaalufinta baddu. haddaba magaalada Maydh iyo waqtigan xaadirka waxa lagaga nool yahay ayaa waxaan ka waraysan doonaa duqa magaalada Maydh oo dhawaan la soo magacaabay, waxa weeye Xuseen Sheekh Cabdiraxmaan Sheekh Saciid Maydh. balada Xuseen xafiiskiisa ayaanu ka bilaabi doonaa, isaga ayaana magaaladeena marin doona si aan markaasi u eegno xaaladda nolosha ka jirta magaalada Maydh. xafiiskani waxa weeye xafiiska duqa magaalada Maydh Xuseen Sheekh Cabdiraxmaan Sheekh Saciid. marka halkan aanu isaga kula kulmi doonaa imika. أهلا وسهلا حسين. عليكم السلام. سلام ونكسنا. هذا الله في عيد. وهذا ما هتصمت هاي إن الحفيز كاج نوقع بشو. واتي حسين. حكي قول ما لقوم مقعبالي. وحاليا مقعبالي صدح دي بشي لبعد 2013. وكان مدبل ومبار إمك حكاية. مدبل لبن هي هاور. كون حسين حالته نرش مقالات مايك سيدا بيمكت. runtii xaaladda nolosha ee magaalada Maydh imika ma xuma, waxa xoogaa ka socda businessyo xagga kalluumaysiga ah, inkastoo sidii berigii hore ay ahaan jirtay aanay imika ahayn. marka xaaladdeedu runtii way wanaagsan tahay, ma xuma. marka noloshu magaalada Maydh waxay ku xirantahay kalluumaysiga meelka mise waxa jira ganacsiyo kale iyaguna magaalada ka socda. iminka waxay ku xilan tahay kalluumaysiga runtii. waatay dhinaca dekada magaalada Maydh wax ka soo degaa ma jiraan waqtigan xaadirka? ma jiraan waqtigan xaadirka wax ka soo degaa iyo wax ka dhoofatoonay dekada oo burbursan awgeed. waxaa jirta qorshe la doonayo in lagu dhiso dekada oo iminka hawlgalkiisa lagu jiro, marka sababtaas awgeed baan iminka aan waxba uga soo degin oo dekadu way dhisanaan jirtay berigii hore, laakiin iminka way burburtay. laakiin waxa jirtay waqtiyo dekadu ay xaami ahayd oo ay aad u shaqayn jirtay Soomaaliya sida 80-aadkii oo kale. runtii waqtiga anigu waan yaraay, waqtigii adigu 80kii ilaa iyo 88kii intii uu ka dhacayay dagaalkii dalka ka dhacay, Maydh waxay ahayd customka ugu dakhliga badan leh Soomaaliya waqtiga sida lagu qiimeeyay nimankii customerska ay sheegeen. dhinacyada kale nolosha ma jiraan iskuulle iyo isbitaal magaaladu leeyahay waxyaabo wada. iskuul uu jira waxa weeye ilaa iyo standard 8. socodkan iminka aan ka imi Ceergaabo waxaan soo register garaynay in secondary laga dhiso oo aan markaa qolada waxbarashada isla sii eegnay Maydh. xagga caafimaadka waxa jira MCH oo berigii hore rug buu ahaan jiray. intii aan xilka qaban baan arrimaha bulshada kala shaqayn jiray qolada reer Maydh. MCH ka imika waxa laga dhigay register from Geneva oo dawadoodu toos bay Geneva uga timaadaa from Maydh. marka halkaas baa iyadana caafimaadku waxa weeyaan MCH ka wali dhakhtar runtii ma laha. dhibaatada burcadbadeed sidee baa ka timid deegaanka Maydh? runtii dadka u dhashay deegaankani ma galaan arrimaha burcadbadeeda
oo may dhicin marna in cid nacamti mayd ka socoto oo bilcadbadeeda la soo qabto kale laakiin marmarka qaar waxa timaada in dad ka soo xadgudbay dhinaca Puntland oo doonaya inay doonyaha meelaha kan ku gaadaan ama maraakiibta in lagu soo qabqabto ereyadan deegaanka ugu badan ee bilcadbadeed nacamti Somaliland lagu soo qabtayna waa mayd runtii sida kuwa maanta aynu arki doono insha Allah xuseen su'aal kale hadaan ku weydiiyo waxa ka warhayaa inaad ka mid ahay dadka qurba joogga adiga ku dhaal oo magaalada London muddo dheer aad ku noolay goormaad ku soo laabatay halkan waxaan ku soo laabtay halkan 2009kii 2009kii ha intaasna runtii dib iguma noqon waxaan ka shaqeeyay meelo kala duwan oo international NGOs-ka waxaan 2 sanadood ka ahaa macallin Addis Ababa Medical University College kabacdi waxaan inta badan ku hawlanaa inaan wax ka qabto dhibaatooyinka ka jira deegaankayga ama bulshada deegaankayga runtii taasina waxay igu sii kaliftay inaan marba mar ka dambaysa sii dhaxgalo oo aan runtii ogaado baahiyahooda waatay xuseen imika waxaan u bixi doonaa magaalada waxaynu soo eegi doonaa xaaladda nolosha ka jirta magaalada Maydh iyo dhinacyada kala duwan ee xarakada magaalada ka jirta حسينو انت هنا قاعدين مقالده برتنكيدا هدي سؤال كلام كويديو waxaa jira degmooyin kale oo iyaguna ku dhararan badan cas ma jiraan waxyaabo u gaar ah deegaankan Maydh oo ay kaga duwan tahay waqtigan xaadirka degmooyinka kale runtii ha imka marka la eego Somaliland ahaan waxa la yiraahdaa nacamti marka berbera ka timaado deegaanka ugu horeeya ee nacamti aad kala kulmayso waxyaabaha arrimaha bulshada sida light dhakhtar biyo waxyaabaha soo dhan bay matalan iminka Maydh aad ka helaysaa runtii waxa kale oo iyadana jirta Maydh waxay ku dhowdahay deegaanka kalluunka aadka looga helo oo runtii ay dadka yiraahdaan meel dugsi ah oo kale bay ku taalaa sida buurta rabshiga oo kale marka taasi waxay sababtaa in inta badan xiliirka kalluumaysigu uu runtii ku badan yahay degmada Maydh waa taymka waxaanu dhex maraynaa dooxii magaalada oo biyaha dooxan ka soo rogmada ay badda halkan kaga daraan waa tay dooxan waxa ku yaal ceelkii magaalada ku cabbi jirtay miya may ceelkan magaalada kuma cabto ceelka magaalada ku cabta wuxuu ku yaalaa xagga sare oo halkaas sare oo aan gaaraynin dooxo laakiin dad biyo ka dhaansanaya iyaguna halkan waxay ku maydhaan dharka matalan dadka ka soo baxay badda laftigooda ayaa iyagu iskaga maydha laakiin riigga iyo ceelka biyaha laga cabaa waxay ku yaalaan xagga sare waatay geedka halkaa inooga muuqda ayaa dadka qaarkood ay sheegeen inuu yahay geed isaguna aad iyo aad caan uga magaalada Maydh wada tafaasiil laga sii waa runtii geedkan markaad qofku markuu Maydh soo galo astaamaha ugu horeeya uu arko bay uu ka mid yahay geedkan magaciisana waxa la yiraahdaa mashaqayste oo runtii waxa la yiraahdaa mashaqayste waxa lagu bixiyay nacamtii horta runtii waa geed aad hurdo macaan marka aad seexato ka bacdi dadka qaarkood waxay seexdaan barqada sida mar dhaweyd aan ku arkaynay oo kale waxa la yiri markaa nin la socday dooni ayaa seexday geedka kadibna doonidii way dhoofisay way tagaysay ka bacdi hurdadii uu seexday buu ka helay uu iska sii hurday doonidiina way kaga tagtay markuu kacay ee loo sheegay inay doonidii tagtay buu geedkii dib u aagu yiri kani waa mashaqayste geedkani runtii taariikh dheer uu ka turjumaa oo Maydh ah
geedkan waxa beeray Sheekh Saciid Mayd waa awowgay ha runtii waa awowgay waa geedka inta badan marka magaaladu ay doonayso xitaa inay waxyaabo gaar ka wada hadasho ay isugu yimaadaan oo meelaha lagu faqo meelaha lagu shiro oo kale odayaasha arrimaha magaalada ah ee nacamti asaasiga ah ay runtii kaga hadlaan waatay arrin aad iyo aad xiiso leh Xuseen xusuusisay qoyskiin iyaga muddo dheer gacanta ku hayay magaalada Soomaaliya haye waatay awowga muxuu ka ahaan jiray awowgii wuxuu ka ahaa sheekh beledka magaalada isla markaana wuxuu ahaa duqii ka talinayay magaalada وكون جدي odayaasha magaalada oo doonayna inaan ka wareysano xaaladaha magaalada iyo siday wax u jiraan iyo arrimahooda ahlan sahlan hay iska warrama soo lama wanaagsana ilaahay nucadi waa wariye weynaa Cabdisalaan Hereeri ahlan sahlan soo lama wanaagsana waa shir bariidsan waatay igu bilow hadda magacaaga saddexaad aniga Xuseen Cabdullaahi Yaqub Bareer Xuseen taariikhda magaalada Mayd maxaad nooga sheegi karaysaa muddo intee lag bay ku suganta magaalada waxaa ka dhacay dagaal baa iyo bilaaya ka dhacday dibadda waa koosoo miyaa daar ku aragtaa hoose ma xaga miyaad ku aragtaa dib waa la baabay dadkii bacmusharigiina wuxuu raacay waxna waa dhinteen waxna waxay raaceen dagaaladii dabadeedna lama soo noqon wax ka taakula yeelan waddanku magaalada iyo dadku midna ma yeelan dadka magaalada ku noolay iyo xarakada magaaladu inta waa ka badnaan jirtay miya يا محمد جوارد استباهن جرت لا هلك أنا كلا جوار شري عريو markaas waa waqtigii dekadu shaqeynayay miya marka ma oran lahayd nolosha magaaladuba marka dhinac walba la eego waxay ku xirantahay dekada maxay ku xidhnaa baad dabcan waxa nolol kale baa jirta meelan dekad lahayn di hadii dunidu waa horumar marsado meel walba dekad iyo hadii la ku reeyay baa laga sameeyay di meelan dekad lahayn hadda mid baa noo yimid dorma indhowto wuxuu leeyahay sidaal baan keenaya xagaan ka rogaa marna goontaas uu tagaa gaalibad halka la ganacsan oo marna halka uu tagaa xees halka soo yaala khoriyada oo dawlad u galaan oo tuubada dibadda loo dhigo buu doonaya de halkan waa dheer waa taro dadka noqon weeyo marka mooy soo noqon doonta naga uuntig laakiin waa imanayaa buu lahaa waa tahay adiguna magacaaga ii sheeg mafadlan xasan saalax ducaale xasanow intaa odaygu sheegay maxaad ku dari lahayd waxaan ku darayaa may 2,000 sano ka badan maray samaysnayd way iyada magaalo oo ahayd maakhir oo idil meer heer leeyahayna maaha waxa lahayd Soomaaliland oo dhan bay u intay meesha waa tahay dabadeedna waxaad moodaa maskaxdii Soomaaliland iyo hooyadii aabii Soomaaliland iyo hooyadii Soomaaliland bada waxa gaab السلام عليكم وعليكم السلام هي اسكو رما سلمونك سنه ما شاء الله اهلا وسهلا سلمونك سنه ما شاء الله خير ويه ان واتي فاطمه هدان ku bilaabo ان فاطمه bal hada ka waran loosh dumarku ay kaga noolyiin magaalada Mayd hadii aan kaaga waramo waxay kaaga taabto magaalada Mayd wax weeye dadka kan waa dad iska maartay kalluumaysatada iyo waxa uu ka yara shaqaysta wixii magaalada laga shaqaysto baa la isula yimaada ama inaan ku shaqeeyo ama mid oday u joogo ha u shaqeeyo ama muslimka kale ba maxay haysto waxa laga siiyay dad masaakiin baa jira oo magaalada ku nool oo jilcsan oo aad iyo aad ciif u ah dadka magaalada hadii macna dooniyay timaado iyo dumarka iyagana waxa gabadh yar dhigta ba dadkaana caawima dad beerka dhulka sax ugu hayo weeyii marka magaaladan taariikhdeedu hore odayaal bay lahayd waxa ka noo maxay kamid ahaa maxay Cabdiraxmaan Sheekh Saciid wax kamid ahaa Yuusuf Sheekh Saciid wax kamid ahaa Ali Jaamac Colaad wax kamid ahaa odaygaygi wax kamid ahaa Nuux Laangare intaas oo kamid bay ahayd dadka ururiya
bay ahaayeen oo dadka og guryaha ku هاي hadda waayeelkii uu ka dhintay waayeelkayga labada yada islaamood iyo waxaan dhaamin oo naga simeyn hoosiye waa ka haray marka magaalada hadda waxa kaga taabto magaalada taariikhdeedu defog tahay weeye awliyadii oo dhamina ku aasan tahay magaalo aan dagaaladii haddii ay dhaceen aan dhiig ka dhicin taamooye ma jirto harta iyo saq wala isugu yirtan wala isugu lama taaban jirin dadka waa ka xaaraansantay magnuuc bay ka tahay in lagu dilo marka magaaladii aad u jirsatay xagga dawladdan waxaanu leenahay dawladdii anama soo gaarin annaga halkayse ku meeraysanay iyo burco iyo intaa wadadayadu waad soo aragtay dekadayadii waa tan warbajoog haddaad ingiriiska aad ka hadlaysay tv-gaanu kaa daawan cabdiraxmaan oo naga wargey magaaladii waad sii aragtay dekadii waad sawirartaan malaynaya dekadii waad sawiratay marka dekadayadii aad iyo aad u jirsan tahay markii magaaladu ay xarakada badan lahayd dekadu ay sida wanaagsan u shaqaynaysay iyo imika nolosha dumarka markaad eegto maxaa khaasatan iska bedelay shaqo isku leedahay nolosha hore markii hore wanaagsan magaaladu soconaysay wax kala soconaya mid baa shiiha karsanaysay mid baa raashin u karinaysay martida waxbaa ka soo geli jiray magaalada kala soconaysa baac mushtar leh bay ahayd beerka dacas hadda dadka baac mushtarka halka ay saaraan lagama iibsado qof magaalada isagoo ka qaata mooyee inamada yadana waxa u waaweyn inanka iyo waxaan dhaamin wixii waayeelkaana waa ka tageen marka waxaanu leenahay dekadii iyo wadadii waad soo aragtay wadadiina waad soo aragtay dekadiina waad aragtay waxaanu leenahay weliba waxaanu idin geynaynaa guryo beer meel dhulka lagu hayo wax aanu annagu hagbadaha iyaga ka bixino mooye iyo wax maxay tahay maleedo mana timaado macaawimooyinkan iyo waxaan sheegayaan maba aragno way haddaan adiga ku weydiiyo dumarka magaalada noloshoodu maxay ku xidhan tahay ma ganacsiyadaasi wax kaga jiraan ma waxyaabo kale qabtaan dumarku waaga hore dakhli bay magaalada dakhli lahayd way shaqaysan jireen dukaamo nagu baac mushtarkaanu ahayn baac mushtarka maanta iyo birhada halka fadhiyo dukaamadii dakhli ma lacag wax la siisto male wad fadhiyaysa xukuma soo gelayaan marka dhibaatooyin badan baa horta hooyada gaar ahaan haysata dawladaha caalamiga ee dadka maxay ahayd taageeraan noo yimaadaan dawladayadu waa dawlad aan weli maxay ahayd meel fog gaarin oo dhaqaale badan haysan haba se ahaatee taagta ay leedahay iyada waxay noo danayso kale ilaaway meedka kamitahay waa dhulka la ilaaway inta kale faranti baan joognaa meel farana baan joognaa ciidamada idinka arkay waa heegan inta badaasi ku wareegayaan waa heegan inta nabadgelyada la ilaalinayo marka meesha horta nabadgelyadeeda baa aad u badan marka waxaan codsanaynaa oo sheegaynaa in dekada waxna la kala qabto dawladaha caalamiga ah ee dadka daneeya ama hay'adaha ama qurba joogtiina oo Cabdisalaam aad naga wargeyso sida nolosheedu meesha tahay oo waxna la kala qabto oo qurba joogta wali ay sii qusayso meed ka soo jeeda ama si magaca reerkaasba waxna la kala qabto oo qayla dhalaan badan oo maxay federation oo dadka oo dhan aad ma u qayliso oo dekada horta wada la saaro wadadii waad soo martay wadadii waxay war indhaadhaama wad soo aragtay wadadii waxa weeye meel shaad dhagaxeed sida ay wadada waxna la kala qabto oo waxna la kala qabto maxay ahayd dekada oo waxna la kala qabto macaawinadu nama soo gaadho ceergaawada xoogaa lagu tirshado mamnuuc way meedka tahay in gaari hore loo soo gaarsiiyo waxa ku dhacdayna garan maayo ducadaha barakaysan iyadaba loogu horeeya oo laga soo ducaystaa oo laga farxiyaa sidaasi arkayseen nimankii odayaasha ahaa iyo hooyooyinkuba waxay aad iyo aad ugu dheeraadeen dhibaatada deegaankan iyo magaalada Maydh ay ku hayso dekadlaanta waqtigan xaadirka ka jirta haddii laga tagi waayana waxay tilmaameen in xarakada kaliya imika jirta ay tahay waxoogaa kalluumaysiya oo sidaasi aan u buurnayn oo magaalada laga sameeyo bal hadda imikana aniga iyo duqa magaalada Maydh Xuseen waxaan u kici doonaa inaanu soo eegno dekadii oo aanu la kulannana dadka ku hawlan dhinaca kalluumaysiga kadib telefoonada la talaashanaysay casriga internet aan tagayno taas loo helayo waa tiknoolajigi adduunka shirkadii telefoonada la talaashanaysay casriga internet aan tagayno taas loo helayo waa tiknoolajigi adduunka tuulaya magaalada somtal way ka tisqaadeen tuulaya magaalada
somtel way qad isqaade gasho somtel mobilkaaga gasho somtel gurigaaga gasho somtel mobilkaaga gasho somtel gurigaaga waa tiirkii isgaarsiinta oo dadka wada tilmaamay كنا حسوينا حقي كده أو هنتي أي شيئين تكون شو ده بدل فهيدا وين هاي سنة هاي اسمها هدي كده لكن واحد يشكتي حسينين وشرور دقاق كسب سيد كده دي بلوغو دسلا هل كان هوش عاصمة رئيسة هنتي إنك مال في عم بيمارسة هنتي دلالك القوة ده إن لقول الصوت كده ماي waxaana gudiyo laga sameeyay qurbajooga oo runtii ku ballan qaaday inay qayb ka qaataan oo ay dhisaan dekada dowmad garan marka taas baa imika runtii aan doonayna inaan baaq dheer u dirno sidii ay uga qayb qaadan lahaayeen dhismaha dekada way intaynu dekada gaarina hadda su'aal kale ku weydiiyo dadka degan magaalada Maydh waqtigan xaadirka tiradooda imsa lagu qiyaasaa وقتي دويد أو رنتي تركوب لو سميي وسارة القرشين تو يكون سميسي وحي لهذين ذكر الدين وحويان أجار كان دور كن أو نعمتي روح أما إلى هذا كل فاميلي وكله وأجار كده هاي سو ما ترى عنكم هاي نعم كان تسويان وطن عبد السلام تكدي مايد إمك وحكسي هراين تاير وداركته بريجي هرانا دكتور حيشوف شفتي ميل وقدر وصلنا وح كيمي ضيعت الآن غيب واحد مية دبيله يدري الآن هين دكتور وطن مركا إمك الدنيا وحكينا يو كلا بدعادها هلك كينيا أما بدعادها اللي قدوا فينا يو سيداب اللور runtii iminka ma jirto badeecad labahan laga raraa halkan laakiin waqtigii hore way ka fogeyd dekadu halkan waxaana ay suurtagal ahayd amaba jiri jirtay in xoolaha lagaga soo rogo runtii badaamo ka duwan kuwan oo kale dekaduna beriga isticmaalkeedu ka wanaagsanaa sidan marka xuseen ma la oran karaa imika maadaama aynu arkayno waxa ka sii haray dekadii ma la oran karaa waa iska magacuun imika dekad shaqaysaa ma jirto waa iska magac imika dekad shaqaysaa runtii imika ma jirto waana sababta aanu qayla dhaanta ugu dirayno cid kasta oo danaynaysa inay wax ka qabato dekada Maydh waxa jira gudiyo badan oo runtii ku hawlan inay wax ka qabtaan dekada Maydh وهاجاك بالهذا يمكن واحد نسوي جدونا أنت إنه لاش كان راعنا هل كده كده أي شوقي شلتي يوحى مركا هذا جدو كده وأنا سيدي مكياه حسين واطي دكدو إله الكبير شو قال سيسلان شفت برجهره دكدو ما لها دكدو يمكن سو قال شفت وإلى هالكاسو كله أنا قلت يا كوكلات marka waaga maxay kaga duwanayd siday imika tahay waxay kaga duwanayd marka iminka barigii bay joogtaa haye marka iminka waxay ku jirtay ilaa badda oo ilaa halkan oo kala ah dawladdu haddii halkan soo istaagto xariga way ku soo xiran kari jirtay Soomaad garanay marka waxay iminka runtii wadafiisa inay dekad duntay tahay laakiin marka waxay u ekeyd dekad dhisan
oo markaa dooniyuhu ay dhinacyada looxan ayay ku soo xidhan jireen miya gaari jireen qaarkood laakiin dekad sidaa u weyn oo sida dekada imika qoryaheedii oo kale meelaha ka mida madowga meelaha laga arkayo markaa runtii markay halkan oo kale soo gaadhsiisan tahay waad arki kartaa cabdisalaan intay u jirto halkay imika tahay runtii masaafad aad u dheer ah waatay markaa dooniyaha imika halkaasoo kale taagani waa kuwii badeecadaha keenay ama qaadayay miya waa kuwii kalluumaysiga waxa weeye doonyihii kalluumaysiga waatay kadibna waxay ku soo xidhaan halkaas waqtiga ay yimaadaan ee ay ku soo talagalaan inay shixmadoodii soo dhammaystaan kalluumaysiga oo ay tegayaan meeshii ay kalluunka u qaadayeen inta badanna dooniyaha kalluunka imika dabadaa u qaadaa yaman bay ka yimaadaan miya intooda badani yaman bay ka yimaadaan runtii waana busineska keliya imika magaaladu ay ku socoto iyadoo jiraan shirkado wadani ah oo iyaguna ka shaqeeya isla degmada shirkadaha hadhow baynu qaar ka mida la kulmi doonaa laakiin haddaan ku weydiiyo xarakaynta lag baa ganacsigan kalluunku uu leeyahay markaa magaalada Maydh runtii sidii la doonayay maaha sababta oo ah waxaan jirin qalabkii kalluumaysiga oo runtii ku yar deegaanka iyo waxyaabaha loo isticmaalo kalluumaysiga sida baraf dhaliyaha oo kale oo baahiyaha ugu weyn ee halkan ka jira ah waxaan la kulmi doonaa mid ka mid ah ganacsatada kalluumaysiga shirkadaha wadaniga ee ka shaqeeya degmada Maydh waatay ahlan wasahlan السلام عليكم وعليكم السلام sallallahu wanaagsan aad baa loo wanaagsan ma sha Allah aad baa loo wanaagsan qalabkan waa qaboojiyaasha kalluunka ku ridaan miya kuwa kan wax weeyaan waa dadka shicibka iyo kuwa iyaguba waa ku jiraan aanu kalluunka ku kaydino geynona cergaaba geyno marka aanu doonyaha saaro qaarna aanu doonyaha saaro marka waad aragtaa dee sida dayaca ay tahay oo aanay lahayn baraf dhaliye wax kasta wax ka muhiimsan oo ay leeyihiin wax waliba wax leeyihiin muhiimku wax weeyaan aqalku meel baa laga bilaabo afarta kun hadaan laga bilaabin dee ma uu dhismo hadii saddex laga bilaabo kuwan baraf baan ku guraa yamantaanu ka keenkeenaa dabadeedna barafka xagee ka keentaan yaman baan ka keenaa waayo berbero baraf nooma dhawa boosaasana nooma dhawa dabadeedna doonyahaas baan wax laga iibsado iyo wax ka soo qaataan iyo wax la dirto dhulkaasaanu dabadeed ku kaydinaa marka waxaanu gaadhnay haddaanu degmo ahaan nahay inaanu kalluunka gaarsiino oo aanu baro dadka gobolka ilaa ceelaf weyn ilaa iyo maxaan ku idhahdaa hadaaftimo ilaa ceel buux ilaa iyo yufle waan hore kalluunka loogu cuni jiray waanu gaarsiinaa gawaarda yar baanu ka qaadnaa dadkuna aad buu marka cigow kalluunka deegaankan laga soo saaro inta badan magaalooyinka aad sheegtay baa la geeyaa mise dabadaha loo diraa maya dabadaha loo diraa inta badan waatay intay leeg baa tusaale ahaan bishii oo kale aad dirtaan anagu waxaanu diraa shirkad ahaan shirkad ahaan markaanu diro waxaanu dirtaa bishii laba dooyood baanu diraa waatay oo midiiba intee la qaadayso midiiba ay qaado 14 15 16 ilaa 20 waatay kalluunka xagee u dhoofisaan markaa kalluunka meelaha kale aanu gaarsiino male waxaanu gaarsiinaa yaman baanu gaarsiinaa waatay dabadeedna yaman baanu barafkana ka soo qaadanaa dooyaana ka soo kiraysanaa gaadiidka yaryar halkan noo yaala laakiin insha Allah waxaanu rajaynaynaa weegagan soo socda inaanu shirkadu ay la wareegto doonyo kale oo iyadoo ay iska leedahay oo ay iibsato waatay marka doonyaha Yemen ka soo kireystaan ma dad Soomaaliya ka shaqeeya mise dad Yemaniya maya anaga dad Soomaaliyeed baan loo shaqeeyaa laash waxa soo laash anaga waa istilaam wax weeyaan laashashka wax lagu gura dadka u shaqeeya iyo dad aanu soo kireysano dadka tababara oo aanu tababar u tusno ayaa noo shaqeeya waxa soo laash markay doon joogto waa shaqo tigaya ilaa iyo 70 qof 80 qof ka shaqeeya waatay kalluunka magaalooyinka kale gaarsiisanay intee in leeg buu leegi wuu badan yahay isaga laftigiisu wiigi wax la gaarsiiyaa 3 tan 2 tan baa la gaarsiiyaa marka wiigi 10kii casho la gaarsiiyaa berigi hore dadku sida uma cuni jirin laakiin imika waa la bartay oo dadkii xanuuno qaar kood iyo maxaan ku dhaaf firfircooni kale iyo waxba laga helado imika waa taciga haddaan ku weydiiyo shirkadii noo kale iyo shirkadaha kale idin la midkii miyaa markaa tahli kari weydeen inaa
barafkoo kale keentaa bal qaboojiyayaasha kale ha joogaan be dee qaboojiyaalka kala joogana barafkii isaga laftigiisa anagu waan ku tala jirkaa shirkad ahaan waanu ku tala jirnaa inaanu keeno baraf baliye si magaaladana maaragtay ee ugu danoobo annagana aan ugu goorgaadhno annaga laftigeeda waa naga haystaa waanu ku tala jiraa shirkadu way ku tala jirtaa inay keento baraf baliye way ku tala jirtaa sababtoo hadda imika haddii ay 10 casho joogto talaakadaha doontu sii dayso barafka waa naga dhamaanaya intaan kiradii bay markaa iska cararaysa marka wax nagu kalifaysaa inaanu keeno qaboojiye aanu keeno بأي طريقة إن شاء الله وقت يدا صوص على هدي الله يرضى. هذه أدبض ما تصدق. تليفون صحو مقال صافيو أسألو غلاهين صمتا وقو هكا تليفون صحو مقال صافيو أسألو غلاهين صمتا صفحون عيدي أنسلوقي صمتين وهجاك سحر آلو جبل صمتين باب الشدا وقو ساعدي ساعد كستا أدوية دا صمتين كلا حدي صمتين وشوي وهجاك kalluunkan imika idiin muuqda waxaa soo dabay muuse dhunkaal oo ka mid ah ragga deegaankan magaalada maydh ka kalluumaysanayay muddada aadka u dheer muuse muddo intee lag baad halka ka kalluumaysanaysay waxaan ka kalluumanayay 50 sannadood waa tay marka intan imika inoo muuqata oo ilaa 6 xabadood waa intii ilaa xalay aad soo qabatay miya ilaa saakaad 4 meelaha aan soo qabtay waa tay caadiyan 24 saacadood oo kale ama habeenkii oo kale imsa xabadood baad soo qabataa habeen waa sidii aad barsaaqada la isiiyaayo mar baan 120 xabo soo qabtaa 200 xabo wax noocaas waa tay marka aad talaagada iyo waxbaan ku gurraa markaas la cirgaaw xagga u diraa marka kalluunkan imika aad halkan ku hayso waa noocma kalluunka bayad baa la yiraahdaa magaciisa kale wax la yiraahdaa siyaag waa tay waa kalluun cad baa la yiraahdaa waa tay muddada dheer ee markaa deegaankan aad ka kalluumaysanaysay maxay ugu weynaad oran leedahay iska bedeleen kalluumaysiga adigu kalluun badan baan ahayn waa tay oo markii hore kalluunku dabadaba loogu soo bixi jiray hadda muddo 20 sanadood meelahaas maraakiib jiriif iyo waxbaan waalay marka kalluunku waa naga yaraaday marka ma noocyo dabar gooyo kalluunka baa jiray iyaguna maxamed dabar gooy laakiin waa yaraadeen oo kuwa kamid ah kuwa yaraaday waxa kamid ah tabadikii oo kale sayidkii oo kale bahasha shirwada la yiraahdo deeragii kalluun noocaas aan weynay oo day yaraaday kuwa markaa imika ugu badan inta badan soo qabataan kalluunkan aan soo qabanaa waa bayaadka marka waxa dhibaatooyin ku hayaad leedahay maraakiibta waaweyn sida sharci darrada u kalluumaysta shibaagtii bay naga jarjareen hali bay qaar naga jiraan anigu hal deertan ana leh waa tay doonida halkan taala ana iskale matoorkeedii marka bay ga jeeray iyo shibaagtii wixiiba way dabadeetana iyadoo aan dhowr casho badda sabeeriya baa marka aan xeebta ka soo caariyay waa tay marka dooniyaha noocee ku kalluumaystaan imka ilaa halkay gaadhaan halka anigu taro kale aan leeyahay moogto mashiintii daawiga jabiyay baalkaas maraakiibtaas iga jabis waa tay marka adigu waxaan gaadhnaa ilaa 25 mayl meelaha ilaa 25 mayl meelahaas ka soo jilaa marka dooniyaha ku kalluumaystaan oo dhammo qaar mashiin la miya waa mashiin bay leeyihiin wax shiraac leh iyo wax noocaas muuse su'aal kale haddaan ku weydiiyo tusaale ahaan kan oo kale bayaadka kiilogii markaa maxaa siisaan kiilogii waxaanu siinaa adigu marka dee shirkada aan u helo cid naga iibsanaysa matalan ceer gaab oo kale marka la geynayo waxaanu siinaa $1
waxyaabaha daba dhibaatada ay ka sheegtaan inta badan kalluumaysatada Soomaalidu meel kasta joogaan waxa kamid ah maraakiibta waaweyn ee sanadihii ugu dambeeyay sida sharci darrada uga kalluumaysta xeebaha Soomaalida maraakiibtaasi iyo waliba ciidamada ilaalada xeebaha Soomaalida ee ka socda caalamka oo iyagana mararka qaarkood ay sheegaan kalluumaysatada Soomaalidu inay dhibaato ku hayaan iyagoo markaasi u haysta in kalluumaysatadii Soomaalida caadiga ahayd ay yihiin rag badcadbadeeda oo mararka qaarkood markaa ama ay xidhxidhaan ama shabaagtooda ay ka gooyaan ama dhibaatooyin kale ay u geystaan iyadoo taasi ay jirto ayaa ilaa sanadkeenu ka soo gudubnay waxa aad iyo aad u yaraaday hawlgallada ay sameeyaan badcadbadeeda Soomaalidu ee maraakiibta ay ku soo qabsadaan iyagoo mararka qaarkood gaara meel aad u durugsan oo badweynta Hindiya si maraakiibtaasi ay uga soo qafaashaan waxaana taasi ugu wacan ciidamada caalamiga ee la dagaalanka badcadbadeeda Soomaalida oo xoojiyay hawlahooda la dagaalanka badcadbadeeda arrimahaas oo dhan oo jira ayaa haddaba xalay markii aanu soo galnay magaalada Maydh waxa la sheegay in ciidamada ilaalada xeebaha ee Somaliland ay soo qabqabteen 9 ka tirsan badcadbadeeda Soomaalida oo lagu tuhunsan yahay inay markaasi doonayeen inay qabsadaan maraakiibta shisheeyaha raggaasi imika waxay ku xidhan yihiin saldhigga bilayska ee magaalada Maydh waxaanu la kulmi doonaa ciidamada bilayska gacanta ku haya iyo annagoo isku dayi doona iyaga qudhooda inaan la kulanno ahlan wasahlan soo fiicna alaykum asalaam khayr weyn waati taliye ku xigeenka waxa tahay ciidamada ilaalada xeebaha نعم aagan bariya Somaliland bal ka waran xaaladda guud ee baddu imika saytay aad iyo aad bay baddu u fiican tahay nabadgelyadeedu u wanaagsan tahay waxa gacanta ku haya ciidanka ilaalada xeebaha ee saldhigga bariga aagan bariga waati xalay waxa la sheegay in rag lagu tuhunsan yahay in badcadbadeed ay yihiin soo qabqabateen tiradoodu waa imisa tirada badcadbadeed aanu qabanay shalayto xalayna aanu keenay saldhigga Maydh maanta joogno labadeenu waa 9 aanu hadda gacanta ku haynaa xagga ka soo qabateen ragga waxaanu ka soo qabanay saldhigga gudihiisa meel la yiraahdo kaliya waqaf oo intee bay u jirtaa degmadan Maydh waxay u jirtaa ilaa 70 kilomitir waata masaafada intaa leeg miyaa idinku haysataan qalabkii gaadiidkii ay ku gaari leedeen ilaa 70 kilomitir 70 iyo ka badan baanu haysanaa oo ka hawlgalnaa oo ku difaacnaa haddii aanan haysan 70 kilomitir Absalaalow iyo wax ka badan aanan difaacayn mar hore badcadbadeedu qabsan lahayd xeebaha Soomaaliland mar dhowbaynu eegi doonaa ragga ku tuhunsantiin in badcadbadeed ay yihiin laakiin maadaama masaafada intaa laga gaadhaan sida idinka qudhiina u wada shaqeysaan ciidamadan caalamiga ee la dagaalanka badcadbadeeda Soomaalida waxa jira xiriir guud ciidanku wuxuu leeyahay hoggaan taliska guud iyo dawladda dhexe jirta xiriirka dawladda dhexe noo haysa annaga iyo ciidamada ajnabiga mararka qaarkood ma kulantaan waanu kulanaa halka bay igu yimaadeen way marka buu leeyahay Ingiriisku waxa uu baxay waanu isu wareysanay waanu wada hadalnay xagga security wada shaqeynta iyo nabadgelyada iyo arrimahaas aan ka wada hadalnay si fiican baan soo karnay marka wax wada shaqeynay ma leedin iyaga waanu leenahay xagga security waan ka wada shaqeynaa idinka qudhiino sida wax xaqiijisan maraakiibta badda ku jirta inay yihiin qaar ruqsad ka haysta dawladda Somaliland iyo inaanay ahayn ciidanka ilaalada xeebaha waxa jira ciidamo gaar ah oo si gaar ah u qaabilsan badda oo la yiraahdo ciidanka raxanta kaas ayaan u diraa kormeerka iyaga jeegaraya doonyaha cashuurta ruqsadda dawladdu siiso iyo maraakiibtaba waxaanu eegnaa ruqsadda ay wasaaradda kalluumaysiga ka sitaan taas aan ku xaqiijinaa waxayna soo galaan dekedaha Somaliland sida Saylac Berbera Sharcaw Xiis Maydh iyo kuwa kale oo lamid ah marka halkaas ruqsadda laga siiyaa ciidanka ilaalada xeebaha la saaraa markaan ruqsadda iyo ciidankayga ku aragno inay saaran yihiin baanu xaqiiqsanaa inay yihiin kuwii dawladda ruqsadda siisay sida imika la sheego waxa aad u yaraaday hawlgalladii ay sameyn jireen badcadbadeeda Soomaalidu ilaa sanadkeenu ka soo gudubnay markii ciidamada caalamiga ay xoojiyeen hawlahooda la dagaalanka badcadbadeeda idinku taama qabtaan mise waxa yaraaday fursadii ay maraakiibta ku qabsanayeen waa qabnaa runtii in meelihii ay ka soo kacayeen ma ahayn horta badcadbadeed meesha ka timaada Somaliland waxa ugu sokaysa Puntland iyo Soomaaliya bay had iyo jeer ka soo kicitamaan taa waxaan ugu sababeynaa runtii in xagga caalamiga wax ka qabteen malaadadka deegaankana xagga culimada iyo maamulada ka jira yar wacyi geliyeen laakiin fursadaha dib nooga reexay waxa kamid ah markii aanu anagu awoodayada ciidan ee adag isticmaalay Somaliland iyo amarka Ilaahay
oo dee wax kasta ilaahay baa suuro geliya aanu isticmaalnay qabanayna burcadbadeed badan oo ay jeelasha ku jiraan kuwan waxaan ku odhan karaa muddo waa kuwii aanu qabanno hadda waxayna ahaayeen muddaan warkooda haynay wareejinaynay ilaahay amarkii shalay bay noo suuro gashay inaanu gacanta ku dhigno waan xanafilayaa kooxdii ugu dambeysay ee jidahayga soo wadaxda inay tahay waa tahay kooxdan iminka aad soo qabateen kooxdii ka horreysay ee gacanta aad ku dhigteen goormay ahayd waxay 2012 baan filayaa bilowgiisii inay ahayd marka muddada intaan lag wax budhcadbadeeda maydii soo qabaneen hal mar baa koox naga fakatay laakiin maana soo qaban hal mar wayna yaraadeen oo socodkii biyaha Soomaaliland way ku yaraadeen wayna og yihiin ciidanka ka soo horeeyay iyo awoodda iyo intii la qabtay bay la socdaan sidaa daraadeed aanay u kari karayn inay soo wajahaan xilligaas ugu dambeysay iyadana waxaan ku qabanay degmada Mayd waa tay Saalax taliye ku xigeenka Soomaaliya ciidamada ilaalada xeebaha taliye ku xigeenka bariga waa tay ragga budhcadbadeeda ku tuhunsantiin baynu haddana iminkana eegi doonaa sidaa wey ogol wey inaad ka qaadaan ha raggani waxa weeye ragga dhalinyarada ee ciidamada ilaalada xeebaha Soomaaliland ay ku tuhunsan yihiin inay budhcadbadeed yihiin idinku ma qabtaan dambiga la idinku soo oogay waa tay badda ku jirtay Soomaa anoo dadka luumaysataan oo xagga ka timaadeen markaa Boosaas ka soo baxdeen halkay ka kaluumaysanayseen xeebahaas oo dhan baa ka kaluumaysanaa badda cas oo dhan tiribadan doonaa waa ka soo noqonaa tribkii ugu dambeeyay baa nala jabay laashkiyo waan ka soo baxnay xeebaha maxaa ku cadaynaysaan markaa inaad tihiin rag sidaa sheeganaysaan kaluumaysataa jilbahaygii shabaaga aan wadanay iyo waxaygii oo dhan baa badda ku qaribnay waa tay deetana ciidanku waxay isku dhufsadeen in ay ayagu ay burcadbadeed noo arkeen anagu dad burcadbadeed ma nihin dhalinyaro waxaan nahay badda ka shaqaysata weligood la yaqaanay labada dhinac laga yaqaanay oo weligood labada gusbadeedka ka shaqeeya haddii ilaahay ku yidmayo libaaxa jilbaha dhiga garanaysaa ma nihin walaal anaga dadka nala ku tuhmayo marka kalluunkii iyo wixii aad dabanayseen ma haystaan oo taaba ku caddayn karaysaa may waxaa noo keentay berigii inaan usoo degnaba sabaradii baa naga baxday habeenimo sayloon baa wadanay yaan maro laba bastoon deetana waxaa soo galay biyo annaga nafsadayda ka badbaadinay oo ka soo dabaalnay marka laakiin arrintaas waa ta inta badan ay ku dacwiyaan budhcadbadeeda Soomaalidu saa la socotaan Soomaa may anagu waxaas waxba ka garan mayno waxaan anagu kuu sheegnay inaanu dad noocaasa nahay dadkaana ay naga fahansan yihiin qalad kale waa intaa waxa meesha ka jira waxaanu iminkana soo gaarnay magaalo xeebeedda kale ee Xiis ee gobolka Sanaag masaafad 18 kilomitir ayaa la sheegay inay isu jiraan magaalooyinka Maydh iyo Xiis hase ahaatee buraha arkaysaan dhexdooda ayaa laga soo dhacayaa jidku waa jid aad iyo aad qarfo ah dabadeedna muddo dheer oo aad moodayso in masaafadu ay ka badantay ilaa 18 kilomitir ayaanu soo soconnay iminkana waxaan la kulmi doonaa qaar ka mid ah dadka ku dhaqan magaaladan Xiis waa tay magacaaga ii sheegada Cabdilaahi yaa la yiraahdaa jaamacadii Cabdilaahi waxaad ii sheegtay inaad ka timi magaalada Liverpool ee dalka Ingiriiska muddo intee lag halka joogtay waxaan joogay hadeer 2 weeks 2 week waa tay markaa miyaad soo gaadhgaadhaa halkan mise rasmiyan baad u degaysaa imika maya waan soo gaadhgaadhaa magaaladu waa magaaladeydii original waa meeshii aan haya markaa waan usoo xash tagaa sanadkiiba mar ya waa tay sanadkiiba mar baan usoo xash tagaa oo badda iyo kalluunkaana ka maarmin ya war wanaagsan weeye bal hadda waxaad ka warantaa xilli jiilaala maadaama Ingiriiska lagu jiray nolosha halkan ka jirtay iyo taxagaa bal isbarbardhig wallaahi waa big gap aad bay u kala magaranaysaa waa imika xagga laftigeeda imika de summer time-ka bilaabmayo waa runaa waa aynu ku jirno de match haddana magaranaysaa marka la isu eego
laysu kombargareeyo ma garanaysaa labada dee cimilo aad bay u kala ma garanaysaa duwan yihiin marka xagga nolosha maxaa ugu weyn aad tilmaami lahayd ay ku kala duwan yihiin marka la eego dalka Ingiriiska oo kale iyo halkan waxay ku kala duwan yihiin horta xagga cuntada way ku kala duwan yihiin way cuntadii iyadoo organic ah haddeer anigu shabaag baan ka imi oo aan ka soo saaray isagoo intaa la leeg kalluunkii waatay soo maad garan imika waxaanu joognaa magaalada Xiis oo ku dhow ama ilaa 18 kilomitir u jirta magaalada Maydh oo ay imika ku xidhan yihiin burcadbadeedii la soo qabqabtay xagga dambe waxaa idinka muuqataa laba ka mida dooniyaha ilaalada xeebaha ee Somaliland iyo doontii lagu soo qabqabtay ragga burcadbadeeda lagu tuhunsan yahay Axmed Xasan Cali oo taliyaha ciidamada raxanta loo yaqaano ilaalinta badaha ayaa iiga waramaya laashka iyo wixii saaraa laashkan waxa weeye labadan laash hore laba laash ciidanka raxanta ilaalada xeebaha saldhigga saacad gobolka Sanaag leeyihiin laashkan ku xiga waxa weeye laashkan soo qabanay ay burcadbadeed wadatay sagaalka burcadbadeed ku soo marteen Maydh aad soo aragteen marka waxaan ku qabanay nimanka kale waqad meesha la yiraahdo laashkan waxa saarnaa laba makiinadood oo makiinada waaweyn loo yaqaan makiinada baaga foordaha la yiraahdo 65 khayl ilaa 40 labada makiinada ayaa saarnaa hadeerna gudaha ay u saaran yihiin marka waan soo aragteen maxaabiistii laashkiina waan wadnaa waxaanu geenaynaa saldhigga isla markaana wax lagu wareejinayaa maxkamadda laashka iyo nimankii watay burcadbadeed ahaaba hadeerna weli howlgalkii ayaanu ku jirnaa socotaan nahay maanta waxaanu joognaa Xiis aan ku qadaynay mardowna waan ka baxaynaa waxaan tagaynaa Maydh saldhigga ayaan geenaynaa sida ayaan u gudbin doonaa insha Allah hadii alla yiraahdo waxaanu ku jirnaa weli socotadii howlgalkii aan Axmed aad iyo aad baad mahadsantahay وهاجاج intaasna waxa ku dhan barnaamijkeena Hareeriya Hargeysa oo toddobaadkan idinka imanayay magaalada xeebeedka Maydh oo ku taala ama ka tirsan gobolka Sanaag inta barnaamijkan oo kale aynu dib ugu kulmaynana waxaanu idinkaga tagaynaa nabadgelyo